sida aan naqaano dhakhaatiirtu waxay qoraan far aad u qallafsan oo uusan qofka horey ka fahmi karin. Ma ahan arrintan mid ku kooban dhakhaatiirteena oo keliya, waa mid ka jirta guud ahaanba dunida. Arrinkan daraasad lagu sameeyey ayaa lagu ogaaday in sanad kasta 7,000 oo ruux ay u dhimato khaladaadka ka dhaca arrinkaas oo keliya. Deegaan ku yaala dalka Faransiiska waxaa lagu magacaabaa Lamoureux Chafis. Waxaan rajeynayaa inaad dhawaqa sahay, waxaana laga wadaa marka la fasiro geerida Yuhuudda. Magacaan waxaa la isku dayay magaaladan ama deegaankan in laga bedelo dhowr jeer, laakiin ma aysan suurtagelin. Ilaa hadda waxaa lagu magacaabaa Lamoureux Chafis oo ah geerida Yuhuudda. Masaska qaar waxay leeyihiin 2 madax, haddana mararka qaar waxaa dhacdo in ay ku dagaalamaan cuntada. Taariikhda casriga ah, magaalada Xalab ee dalka Suuriya waxaa loo aqoonsaday inay tahay magaalada ugu burburka badan caalamka marka laga soo tago Hiroshima oo uu Mareykanka hadda kahor ku dhuftay nuclear. Baranbarada waxaa la sheegaa in ay noolaan karto dhowr isbuuc iyadoo aan madax lahayn oo madax laga jaray. Dhowr isbuuc kadibna waa ay dhimataa. Sababta ay ku dhimato waxaa lagu sheegay inay tahay maadaama aysan cunto qaadanin.